السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيار تشرفت له أو يوتيوب كعبدي جنرال إيو إن فيسبوك إيجا هل كان إن وعد السلام يا دمان قاسة وحن سلام يا دل يرضى إن سوماليات جودهان مش هيتشوجان با إن إن وحن رواينا إذا لو ذا جماعتي هدي لهاي مو إن book fair ayaa dhaca sanad walba magaalooyinka Soomaaliyeed ama Jigjiga ama Hargeysa ama Garowe ama Muqdisho waxa ka dhaca book fair ka dhaca waxa la soo bandhigaa buugag baa la soo bandhigaa buugagtaas ala waxay ku saabsan yihiin gabayada geela iyo mahmahayada iyo dhaqanka sida haamaha loo sameeyay jiray waxa irrefle waxa aan ahayn muhiim oo ku saabsan yihiin laakiin dhalinyarada alaaba looma sheego waxyaalaha muhiimka nolosha u ah looma sheego haddii aad America joogto ama Europe aad joogto waxa helaysaa buugaag ka hadlaysa sidee taajir loo noqdaa sidee qof social loo noqdaa oo dadka saaxiibo loo kasbadaa sideeba relationship loo maintain gareeyaa oo gurkaaga guuleysta u noqdaa sideeba lagu guuleystaa inaad wax barato sideeba luqad loo bartaa waxyaalahaas aad helaysaa laakiin ma helaysi macnaha Soomaalida alaaba ma jirto so waxaan rajaynayaa qoraayaasha Soomaaliyeed inay arrinka ka fikiraan inta ka horeysa laba arrin oo baan rabaa dhalinyarada Soomaaliyeed inaan la wadaago maanta labada arrin waa labo waxa weeyaan متود يعني متود وحلا قاب وحلو مروي تصالحان كسوقات واحد ربطها إنها سنة كلبضة كون إياه صدق لا تنك أتسميسو لباتن كونو دولار وأوجهي إني أي سومالي ملكة شوكتا العكتة ساي بدن تاي لكن تصالحان كسوقات ولقى هم بدن له ومهم كسوقات لباتن كون أو دولار إنها تسميسو بعد ربطة لو كن يصدح يلا واتن واحد مرسى بيش فبراير واحد عبي شرتي كوستا بعد عبي شرتي مالتي إلى صدح كوب $5 بتشوف قابل جيابا من ستاربكس كا كوبكي واتشوتش سياد وقعدوا كوركا بيش فبراير بان مرينا واحد وحيستي كافيه جاجي bishii December waxa ka dhiman 10 bilood baa ka dhiman bankaaga waxa ku jirta $2,000 baa ku jirta labadii bilood oo soo save garaysay waxyaalo badan kafeega ma waxyaalo badan baad iska daysay noloshaadii oo dhan baa isbedeshay saaxiibadii banaankii aad u bixi jirtay iyo restaurant-yada aad tagi jirtay waxa soo dhan baad joojisay you are feeling very depressed sidoo kale waxa dareemaysaa inuu goolka fog yahay 18 baa lacagta ka dhiman 10 bilood oo kale baad noloshan ku sii jiraysaa stage kaas waxay dhahaan quburada stage ka jaranjartu ay qalloocsan tahay 75% ma dareemaysid inaad meel u socoto waxa dareemaysaa stagnated inaad tahay oo hal meel aad taagan tahay laakiin runtu waxay tahay jaranjarta ayaa qalloocsan sidan ma aha straight ma aha waa sidan laakiin still you are going up korba socota so stage kaas waa very critical waa stage ka dadka ay isdhiibaan waa marka dadka guuleysta stage kaas ma dhiibaan waxa dareemaysaa inaad socon laakiin waa socotaa waxaad dareemi doontaa inaad socotid markaad gaadho bisha 10aad straight bay noqonaysaa 18 baa markaa ku jirta ii sheeg koontadaadi waxaad ilowdayba koostihiiba waad banacday jirkaaga waad ka baxday qiimo badan kula ma leh restaurantiga goolkaaga weynaabaad u jeedaa now you can do bigger things than this koostahayna fadhiistay restaurantiyada ina aadad bangiyaaga markii ugu horeysay lacag buu ka buuxaa marka stage kaas inaad isdhiibin waa arrin muhiim ah dhalinyarada Soomaaliyeed waa kula talinaya taas ka gudub tan labaad waxa way oo aan jeclaan lahaa in dhalinyarada Soomaaliyeed loo sheego waxa weeyaan ha samaysan lifestyle inta aad nolol aadan samaysan horta marka hore nolol samay kadib lifestyle samayso lifestyle waxa way qaab loo noolaado waxyaalaha aad jeceshahay
ama inaa xirato okiyaalaha raybonka saacadaha qaaliga dharka maarkaha inta aadan xiran balorta lacag samee markaas lifestyle samee ma fahanti dhalinyarada Soomaali ala waxa arkaysaa iPhone Pro Max 13 baan wataaba ku leeyahay lacagna kuma shuban karo waa ogahay hooyadiis gurigiisa seexda waa ogahay walaashiisa bisha 30 sano jira waligiis ma shaqeyn haddana wuxuu wataa iPhone wataa gaari buu rabaa inuu wato waxaas oo dhan waa shaxaad weeyaan waligii marka horumar gaari maayo qof buu ku tiirsanaanaya marka first iPhone ha qaadane qoslahay qaado lacagta iPhone ku qaadan lahayd investment ku samee investment ku samee dhaqaale samee kadib lifestyle samee noloshaada marka waa maintain garan kartaa adoon qof baahan xor baad noqon kartaa soo labada maado aan rabo maanta inaan idin sheego warku ay ku badi waxa weeyaan markii ay jaranjartu qallacsan tahay 75% ha isdhiibin sababtoo ah wali kor baad u socotaa laakiin adigu ma dareemaysid tan labaad waxa weeyaan nolol samayso inta aad qaab aad u noolaato aad samaysan وما هتسنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته